Dadka marka aad la hadlayso indhahooda eeg, marka aad aragto u dhoola caddeey si aad u xushmayso mar kasta ku dheh fadlan. Sidoo kale u mahadceli si aad u dareensiiso inay muhiim ku yihiin. Samaynta intaas waxay badinaysaa damiirka bulshadeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ramadaan kariim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinta soo koraysa. Kadib markii aan arkay isbeddel ku socda dhalinta Soomaaliyeed gaar ahaan jiilasha soo koraya, rajo xoog leh ee gashay in ummadan masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda wax badan uu ku tiirsanaan doono dhalinyartaas, waxaan go'aansaday inaan idinla wadaago barnaamij aan ugu magac daray adiga iyo bulshada. Adiga iyo bulshada waa barnaamij aad u kooban oo ilaa 15 xalaqa uu noqon doono haddii Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala uu idmo. Waxaan idinkula wadaagi doonaa arrimo khuseeya bulshadeena. Waxaan ognahay waxaan ku jirnaa xilli dunida isbeddel waaweyn ay ka socdaan. Keli aan hal wadan ahayn, qaaradaha dhan dunida oo dhan ay isu beddelayso inay noqoto hal tuulo. Sidaas darteed anagana ka Soomaali ahaan, ka bulshada Soomaaliyeed ahaan, nafteena waxaan ku jirnaa marxalad kala guur ah. Waxaan ka wadaa marxalad kala guur ah. Waxaan rabnaa inaan ka guurno marxalad waxaan ku jirnaa aan ka guurayno nidaamkii traditionalka ahaa ama abka soo gaarka ahaa. Waxaan u guuraynaa nidaam dawli ah. Nidaamyadaas ama gaar ahaan nidaam dawli casri ah. Nidaamkan dawliga casriga ah wuxuu leeyahay daldalooladiis ayuu leeyahay, wuxuu leeyahay dhankiis wanaagsan ayuu leeyahay. Waxaan ku qasbannahay inaan lahaano ilbaxnimo iyo xadaarad bulshada Soomaaliyeed u gaar ah. Si arrintaas loo gaaro, dhalinteena soo koraysa waxaan u baahannahay inay yeeshaan ama ay helaan qaab ay ula qabsan karaan isbeddeladaas dunida ka socdo, ayagoo sidoo kale isbeddelkaas ka faa'iideysanayo, waxaana ku kordhinayo jiritaankoodii bulsho ahaaneed Soomaali ahaan iyo Muslim ahaan ilaalsan karo. Sidaas darteed ayaa programkan insha Allah waxaan idinkula wadaagi doonaa qodobo aad u muhiim ah oo qof kasta bulshada ka mid ah si toos ah iyo si aan toos ahayn u saameynayo. Sida uu leeyahay qoraaga weyn Dr. Tariq Suwaydan, waxay yiraahdaan bulsho si loo bedelo wax loogu bedelo waxa loo baahan yahay in wax laga bedelo 5 shay. Shayga ugu horeeya waxaa la yiraahdaa koow bulshadaas qaab fikirka iyo waxyaabaha ay ku qanacsan tahay in wax laga bedelo. Yacni maanta haddii aan adigu waxaadan ku qanacsanayn, fikriyan aadan ku qanacsanayn, way adag tahay in ay qaadato kadibna ay ka mid noqdaan dhaqankaada iyo sulukiyaadkaada ay ka mid noqdaan, way adkaanaysaa. Marka qodobka koowaad waxaan dhahnay waxaa weeye waa si bulsho loo bedelo waxaa loo baahan yahay in bulshadaas fikirkeeda iyo qaabka ay u fikirayso iyo aragtideeda wax ay ku qanacsan tahay laga dhigo. Shayga koowaad waxyaabaha bulshada muhiimadda siiso. Bulshadu maxay muhiimadda siisaa? Bulshooyinku way kala duwan yihiin. Bulshooyina waxaad arkaysaa muhiimad siinaayo kaliya waxyaabaha tarfiihiga ah iyo maalayacniga iyo safarka iyo baashaalka ah. Bulshooyina aad arkaysaa inay shaqada iyo maxaa la dhahay ay muhiimadda siinayaan. Marka bulshadaas waxyaabaha ay muhiimadda siinayso iyadan in wax laga bedelo waxay qayb ka qaadanaysaa in qaab dhaqanka xadaaradeed iyo ilbaxnimo ee bulshadaas yeelanayso wax laga bedelo. Sidoo kale qodobka saddexaad marka wax laga bedelo bulshada ay isbedeli karto waxa waaye xirfadaha ay bulshadaas leedahay. Bulshooyinka waxa way dunida qofna ma joogi karo asigoon lahayn xirfad ama u gaar ah, yani xirfad la'aanteeda lama noolaan karo. Sidaas darteed xirfooyinka ay bulshadaas leedahay ayaa sidoo kale waxay saameyn ku yeelanayaan tawajuha ay yeelanayso bulshadaas dhanka ay u jeedsanayso. Haddii bulshada ay ku badan yihiin dad dhakhaatiir ah, ay ku badan yihiin dhanka caafimaadka, systemka caafimaadka bulshadaas ay leedahay wuxuu noqonayaa mid aad u xoogan. Haddii ay ku badan yihiin bulsho dhexdeeda ay ku badan yihiin dadka injineerada ah wax dhiso, ayadaas wadankaas inuu structure-kiisa ama qaab dhismeedkiisa uu wadan dhisan uu noqdo, iyadan waxa way waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshooyinka wax laga bedelo. Marka guud ahaan xirfadaha ayagana muhiimad aad u weyn ayay ka qaataan in maxaa la dhahayay ay bulshadu isbeddel ku dhaco. Waxyaabaha kale sidoo kale muhiimka ah bulshadaas dhexdeeda xiriirada dhexmaro. Xiriir ayaa jiro. Bulshadu waxa way waa anaga waxaan ka midnahay bulshooyinka xiriirada dhexdeena ah ay ku bees garaysan yihiin xiriir qaraabanimo, ehelnimo ku bees garaysan yihiin. Mararka qaarna taas ayaa waxay keenaysaa in friction iyo isku dhac iyo dagaalo aan loo baahanayn oo laga maarmi kari lahaa halkaas ay ka imaadaan. Marka xiriirada bulshadaas dhexmarana sidoo kale marka aad rabto inaad bulsho wax ka bedesho waa inaad wax ka bedeshaa.
qofka qoyskiisa siduu ku yahay, community ama bulshada deegaanka uu degan yahay siduu ku yahay, xaafadda uu degan yahay siduu ku yahay. waxyaabahan dhan ayaa saameyn ku leh. waxaa qeybtan xiriirka soo hoosgalayo oo maxaa la dhahayay reeraha iyo qaraabanimada iyo qabiilka, waxyaabahan dhan waxay soo hoosgalayaan ilaaqaadka ka dhexeeyo afraadda bulshadaas ay soo hoosgalaysaa. qodobka shanaad ee bulsho marka aad rabto inaad wax ka bedesho aad ku qasban tahay inaad wax ka taabatid waxaa waaye dadka ay ku dayto bulshadaas. waxay dhahaan dad lagu daydo qiyaadada, yani qof kasta waxaan ognahay daduu ku daydaa. qofaad arkaysaa waxaa ii tahay role model ay tahay uu ku dhahayaa. qofaad arkaysaa waxaa role model ii aan ku daydaa ciyaaryahan hebel ayuu ku leeyahay. qofaad arkaysaa ganacsata wuxuu ku leeyahay waxaan ku daydaa ganacsadaha weyn ee maxaa la dhahayay Jeff Bezos ee Amazon iska le ayaan ku daydaa. marka dadka ay bulshadaas ay ku dayto oo role model u arkaan waa in wax laga bedelaa si bulshadaas dhaqankeedii iyo qaab dhismeedkeedii wax looga bedelo. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala yiraahdo programkan adiga iyo bulshada waxaan uga hadli doonaa arrimo khuseeya 5 shay si toos ah si aan toos ahaynba u taabanaya ayaa halkan idinkula wadaagi doonaa. aynu rajaynayo in dhalinta gaar ahaan dadka soo koraayo ay wax badan ka faa'iideysan doonaan. war la helaa tale la helaa ay dhahaan. waxay dhahaan war la helaa tale la helaa. markaad cilmigaasi aqoontaas aad hesho waxaad helaysaa talo iyo qaabkaad u dhaqmi lahayd bulshada aad kasoo jeedo, qaabka siyaabaha ula noolaa. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.